waa kuma Danjire Daahir Maxamuud Geelle. mudane Daahir Maxamuud Geelle wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1966 iyada ayuu ku barbaaray kuna qaatay waxbarashadiisa asaasiga ah iyo midda dugsiga sare. sanadkii 1984 ayuu ka baxay dugsiga sare ee Sheekh Suufi waxa uuna ka mid ahaa ardaydii gashay kaalmaha hore taas oo uu ku mutaystay deeq waxbarasho oo dalka Masar ah. sanadkii 1991 ayuu shahaadada koobaad ee jaamacadda ka qaatay jaamacadda Al Azhar ee waddanka Masar isagoo bartay qaynuunka iyo shareecada Islaamka. intii u dhaxaysay 1991 ilaa 1993 ayuu macadka cilmi baarista iyo daraasaadka carabta ee Masar ka qaatay diblooma sare isagoo diyaariyay daraasad ku saabsanayd xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. isla macadka cilmi baarista iyo barashada culuumta ayuu ka qaatay shahaadada master's degree sanadkii 1995 isagoo qoray daraasad ciwaankeedu uu ahaa asalka dagaaladii sokeeye, sababihii ka dambeeyey iyo natiijooyinkii ka dhashay. hadda waxa uu macadka cilmi baarista iyo barashada siyaasadda carabta ee Masar uu ka diyaarinayaa shahaadada PhD-da. shaqooyinkiisa iyo waayihiisa nololeed. Danjire Daahir Geelle waa aasaasihii idaacaddii Qur'aanka Kariimka ee IQK ee Muqdisho ka shaqaynaysay intii u dhaxaysay May 2001 Agoosto 2010 kahor intii aysan boobin maleeshiyada Al-Shabaab iyada iyo idaacado badan oo gaar loo lahaa. intii u dhaxaysay 2001 ilaa 2004 waxa uu ahaa u qaybsanihii xiriirka dibadda ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta dowladdii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasin Salaad Xasan. Danjire Geelle waxa uu xubin firfircoon ka ahaa garabkii siyaasadda ee maxkamadihii Islaamka isagoo ka qayb galay wadahadalladii gaarka ahaa iyo kuwii guud ee 2006 ilaa 2007 la iskugu keenayay maxkamadihii iyo dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Allah u naxariistee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ee ka kala dhacay Suudaan, Jabuuti iyo Yemen. waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyaashii shirkii lagu yegleelayay isbahaysigii dib u xoreynta ee ka dhacay Asmara sanadkii 2007 isagoo kaalin ku lahaa shirar kale oo loogu gogol xaarayay dhismaha isbahaysiga. waxa uu qayb ka ahaa wadahadalladii nabadeed ee xukuumaddii Soomaaliya iyo isbahaysigii dib u xoreynta ee ay ku galeen Jabuuti ayna ka dhalatay dowlad wadaag ah oo uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed bilowgii 2009. waxa uu qayb ka ahaa dhammaan shirarkii u qaabaysnaa dood cilmiyeedka ee lagu qabtay gudaha iyo dibadda Soomaaliya intii u dhaxaysay 2001 ilaa 2013. muddadii u dhaxaysay 2009 ilaa 2012 waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Agoosto 2009 ilaa Julaay 2010 waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid waana wasiirkii dib u howlgeliyey boorkana ka jafay warbaahinta ku hadasha afka dowladda xilli ay dhagaha dadka haysteen warbaahinta Al-Shabaab. 2012 ilaa 2013 waxa uu ahaa hogaamiyaha madasha Daljir ee wadahadallada Soomaaliya waxa uuna qayb ka noqday madallo kale oo Soomaaliyeed oo ka dhacay Mareykanka iyo Ingiriiska. 2013 ilaa 2015 waxa uu ahaa la taliye xagga carabta iyo arrimaha diinta ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. 2015 ilaa 2018 waxa uu ahaa safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Sacuudi Carabiya isagoo kaalin weyn ka geystay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal. waxa uu sidoo kale ahaa safiirka aan deganayn ee Soomaaliya u qaabilsan dalalka Bahrayn iyo Urdun. bishii May 2018 waxaa loo magacaabay wasiirkii warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya xilligaas oo uu iska casilay May 2019 markii uu sii xoogaystay kala aragtidoonanshiyaha siyaasadeed ee kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre. Danjire Daahir Geelle ka sokow inuu yahay aqoon-yahan bartay qaynuunka iyo siyaasadda soona qabtay xilal sarsare oo kala duwan sidoo kale waa ganacsade ay 30kii sane ee ugu dambeysay noloshiisu ku tiirsanayd ganacsiga waana waaye arag si weyn u fahamsan marxaladihii kala duwanaa ee dalku soo maray isla markaana yaqaan dhaqanka iyo sooyaalka Soomaalida. wuxuu la soo shaqeeyay dhammaan madaxweynayaashii dalka soo hogaamiyay burburkii kadib waxa uu rumaysan yahay in wada lahaanshaha, wada tashiga, iskaashiga iyo isu tanaasulku yihiin xalka kaliya ee Soomaaliya ay uga bixi karto
mashaakilka siyaasadeed ee dabada dheeraaday. Danjire Daahir Maxamuud Geelle waxa uu garowsaday inuu dalku u baahan yahay aragtidiisa iyo waayo aragnimadiisa, waana murashax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee doorashada 2021.